kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta awada naga daawanaysa ku soo dhawaada warka telefishinka Hilaac madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegayay 64 guuradii ka soo wareegatay markii ay xukuumadda ay qaateen gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre oo hambalyo ku aadan maalinta 1 Luulyo u diray shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo kulan la qaatay odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeedo Xiraale iyo Caabudwaaq madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaaw Xuseen oo tacsi u diray mid kamid ah ugaasyada ka soo jeedo deegaanada Hirshabeelle madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Isaam Axmed Madoobe oo ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegayay maalinta xornimada Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegayay maalinta xornimada Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay munaasabada xuska sanad guurada 64aad ee xornimada iyo midnimada dalkeena ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay xoojiyaan wadajirkooda xajistaan dhaxalgalka awoowayaashood madaxweynaha Jamhuuriyadda ahna taliyaha ciidamada qalabka sida ayaa salaan sharaf kaga qaatay taalada daljirka Daasoon cutubya ka tirsan ciidamada qalabka sida oo gaardis ku soo maray qaar kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho isaga oo u baxdhigay taalada daljirka si loo maamuuso halyeeyadii Soomaaliyeed ee naftooda iyo maalkooda u huray gobonimada Soomaaliya dabaaldega munaasabada waxaa ka qayb galay diyaaradaha qumaatiga u kaco ee ciidamada cirka dabaabadaha iyo gaadiidka dagaalka ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa booliska kuwaas oo soo bandhigay sida ciidamada qalabka sida ee dalkeenu ee ugu diyaarsan yahay difaaca qarankeena ilaalinta amniga iyo midnimada gobonimada dalkeena madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo kulan la qaatay odayaal iyo waxgarad ka soo jeedo degmooyinka Xiraale iyo Caabudwaaq madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa la kulmay odayaasha iyo waxgaradka labada beel ee ka soo jeedo Xiraale iyo Caabudwaaq isagoo bogaadiyay heshiiska hordhaca ee shalay ay gaareen isla markaana kula dardaarmay inay si buuxda loo dhameystiro qaybaha haray ee heshiiska marka maanta tahay in laga adkaado walaalayaal mudanayaal iyo marwey waxaan rabnaa midka meelaha daldalo laga fiiriyay midka xagga cilada yeelaya midka meelaha ka soo gelinaya odayaasha iyo akhyaarta inay ka adkaadaan la yiraahdo waxaasi meel noguma furan waxa kan hadda media leeyahay oo baraha bulshada waad aragtay wax qayb ka sheegaya wayri malaha culimada iyo dadka qaybka ka sheegana oo qaybka wadana loo dhageystay waxaa la dhageystaa malaha inta xun ويعني والواس حاجة كان دعوة والواحد يا وحيد إلا الحوار حبسية اللي قرشوا ونقل عليه وصل بيها أيها تمنها عسكوي ولا تجي يقول لهم شو واحد بفصحي الدوك مال قبول وحور بس كشيء كرام سبحان الله سبحانه وتعالى وبرامج شو صبركم بعشا قبيلة أو عرق اسمه شبابي ووجهها ضد الصومالي سوق أنا ما السوق خيرات من قال السوق يبغى أسرع بعشا أصلا إلهي كم قلبي أنا كسر kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ah xubno ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya mudanayaal ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka Galmudug odayaasha labada beel iyo culumadii garwadeenka ka ahayd heshiiska madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaaw Xuseen oo tacsi u diray
ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday ugaas Mawlid. Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa tacsi u diray qoyska, asxaabta iyo shacabka Soomaaliyeed oo ka geeriyooday ugaas Mawlid. Ugaas Cabdullaahi Ugaas Axmed ugaaska ayaa ka mid ahaa dhaqanka waqtiga geliyay dhismaha dowlad goboleedka Hirshabelle, waxa uuna ku lahaa door muhiim ah. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan tacsi tiiraaya leh u dirayaa asxaabta iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo ka baxay ugaas Mawlid. Ugaas Cabdullaahi kaalin muuqda ayuu ku lahaa dowlad goboleedka Hirshabelle dhismaheeda. Gabagabadii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa Rabbi uga baryay in uu geeyo Jannatul Firdaws. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Isaam Axmed Madoobe oo ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegayay maalinta 1 Luulyo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Isaam Axmed Madoobe ayaa xarunta dowlad goboleedka Jubbaland kaga qayb galay munaasabada 1 Luulyo ee xurnimada gobolada Koonfur iyo midowgii gobolada Waqooyi iyo Koonfur oo laga joogo 64 sano. waa maalin aad iyo aad qiimo iyo qadarin u leh maanta oo aan joogno in ka badan 64 sano aan hadda ku dhex jirno. waxaan rabaa caawa sidii loo hadli jiray si ka beddelan inaan u hadlo. waxaan dareemaynaa culays badan oo maanta dadka Soomaaliyeed haysta. marka aan ka soo qaadno 1950kii rabitaanka mujtamaca Soomaaliyeed ee xorriyadda raadinayay, markaan ka soo qaadno markii daakhiliyada ay qaadanayeen, markaan ka soo qaadno maalintii xorriyadda calankan aan Xuseen laga saarayay, sidee buu ahaa mujtamaca Soomaalidu maanta halkee buu marayaa? waa su'aal. waxaan hubaa maba dhacaysee maanta haddii qabriga ay ka soo baxaan ama dad badan oo xilligaa halgankan soo jiray maanta ay wax xaaladda ay ku jiraan ay arki lahaayeen waddanku, inay noloshooda iyo cidhiidhi badan dareemi lahaayeen. calankaanan caawa xusayno ee buluugga waxaa u soo dhintay dad badan oo Soomaaliyeed. waxay raadinayaan xorriyad. su'aalaan idin weydiiyo, maanta kuwa shabaabka ah ee deegaano badan oo waddankaa gacanta ku hayaay, isticmaalkii aan 50kii la dagaalamaynay ee 60kii xorriyadda ka qaadanay, dhibka ay samaynayeen ee iyagu samaynayaan kee weyn? waa su'aal. waa su'aalaan idin weydiiye, mujtamaca Soomaaliyeed ee Soomaali raadinayay ee axyaa waddanii lahaa, ee odayga iyo gabadha iyo hooyada iyo ilmuhu ay wada dagaalamayeen, ee xorriyadda la raadinayay, 64 sano ka bacdi maanta halkeen marayna? mujtamaceennu xaggee buu marayaa? dhibaatadayna haysataa intay la eg tahay? away dowladnimadaan raadinayna iyo awa calankii. madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabduqaadir Xaaji Maxamuud, xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, saraakiisha ciidamada iyo dadweyne kale ayaa sidoo kale kaga qayb galay munaasabada. qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Hilaac